waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaaraheena waxaan sheegayaa haddii jir dhaxaaya leeyihiin wiilal way dhaleen oo ay aabbo way leeyihiin wiilkooda say uga naxi lahaayeen waa inay nooga naxaan waa 8 sano ay wadarayaan walaalkay la dhasho waa 8 sano xirayaan mar walba dhibaato ay u haysato aniga waaye qaasii xasan ali dhaha gabadha giliibka duubta aniga waaye giliibkayga aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama ay iga soo jawaabtay jawaab wacan ay iga siisay aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxda Soomaaliya aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan go'aansanay dadku siday u kala dhib badan yihiin inaan ku bilowno waxaan ka shaqayn doonaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhibaataysan aan isku dayno haddii Ilaahay yiraahdo inay gacanteena gaarto soo deynta maxaabiista xasan cali khayre ayaa intii uu xafiiska joogay ku guuleystay in dalal ay ka mid yihiin Liibiya, Ethiopia, Oman, Iran, Tansaaniya iyo Hindiya laga soo daayo dalkana dib loogu soo celiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan ugu xirnaa sidii aan ra'iisul wasaaraha u noqdo waxay mid dad badan oo maxaabiis oo ka keenay Ethiopia qaaran ka keenay Liibiya qaaran ka keenay India qaaran ka keenay Seychelles qaaran ka soo wadna Tansaaniya qaaran ka soo wadna Oman muwaadiniinta ayaa qaarkood lagu caawiyay in ay dib nolol u abuuraan ayna ka qayb qaataan dib u dhiska dalka markaan airportka lacag baa la siiyay shopping aan ku samaysano $100 ah magaalada markaan soo galnay habeen joogna lacag $200 baan amalka qaadanay muddo 6 bilood bay lacagta $200 ayna 300 ugu horeeyay anigu ku jirno loogu tala galay inaan naftayda anagu wixii aan dad dareeyaysan maadaama aan ahayn waxaan ka shaqeeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha shalay tolo waxaan ahaa muhaajir soo noqday oo dalka marti ku ah ma aanan filaynin inaan u shaqo tagi doono goobtaas asxaabtii aan wada nimina waxay ku lahaayeen Liibiya aan kaga imanay Cabdiwaasac waa degdegsan tahay runtii maalintaas waxaan ugu taagnaa Yurubna uma baahan Australia uma baahan dalkayga aan u baahanay sababtuna waxaan arkay caburinta bahdilka iyo cadaadinta qiimaha iyo wadanku qiimaha uu leeyahay markasta oo wax i hor imaadaan waxaan xasuusanay dalkayga iyo xorriyaddii aan haystay iyo xuduud la'aantii meel walba aan marayay waxaan go'aansanay dadku siday u kala dhib badan yihiin inaan ku bilowno waxaan ka shaqayn doonaa in qof walba Soomaaliyeed oo dhibaataysan aan isku dayno haddii Ilaahay yiraahdo inay gacanteena gaarto asxaabtii aan wada nimina waxay ku lahaayeen Liibiya aan kaga imanay Cabdiwaasac waa degdegsan tahay runtii maalintaas waxaan ugu taagnaa Yurubna uma baahan Australia uma baahan dalkayga aan u baahanay sababtuna waxaan arkay caburinta bahdilka iyo cadaadinta qiimaha iyo wadanku qiimaha uu leeyahay markasta oo wax i hor imaadaan waxaan xasuusanay dalkayga iyo xorriyaddii aan haystay iyo xuduud la'aantii meel walba aan marayay